qaar ka mid ah dhalinyarada gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ee caasimada gobolka Awdal ayaa waxay ka hadleen hadallo maalmihii u dambeeyay bulshada magaalada Boorama isla dhex maris oo ahaa dhulka danta guud ee magaalada Boorama waa la iibin karaa iyo lama iibin karo haddaba waxay dhalinyartani taageero mug loo muujiyeen in dhulka danta guud ee magaalada Boorama laga iibin karo shakhsiyaad kasta oo ka tirsan muwaadiniinta reer Soomaaliland waa kuwan haddaba dhalinyartaasi oo amurahaasi ka hadlaya waxaan sheegaynaa in aan wax qallaasi ka jirin oo waa u jeedaan dadka dhulka laga iibiyayna ma aha dad meel kale ka yimiday waa dadkii Boorama deganaa mataqaanaa gobolka Awdal deganaa ganacsatada ahayd ee magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda inay soo hormariyaan xaq bay u leeyihiin oo dhulkii la iibinayay si waxana looga iibiyay sharciga waxana dawladdu uga mas'uula wasiirka hawlaha guud isagana hawshaasi sharciga ganacsatadaas iyo isagu ay u kala dhameysteen waxaynu leenahay dhulka danta guud ahaa intay meel iska oolaad xayirnaan lahayd waxa wanaagsan in laga meel dhaliyo oo ay wax qabad muuqata yeelato waxaan aaminsanahay danta gobolka waxay ku jirtaa dhulka danta guud ah oo maxay ahaydee si balaaran loo maalgeliyo haddii dhulka la maalgeliyo inta isku oolahayn oo dhismo wanaagsan laga dhiso oo dadka 40 ama 50 qof ay ka shaqeeyaan u shaqo tagaan deema wax ku oolba misoo faa'iido dar waxaan aaminsanahay wax ku ool weeyaan qortaynin walba Soomaaliland degan kalaascano joogi ka loo yacdo joogaaba meel kasto Soomaaliland uu siman yahay inuu maal gashado meel kasto dawladdu iibisay digreeto madaxweyne ku soo baxdana ka dhulbaantay iibsan kara ka wasan gariib iibsan kara ka saaq iibsan kara ma qaani walba lacag soo haysa aniga laftiga iibsan la lacag hayo laakiin waxaan aaminsanahay inaan la kala lahayn wadanka hargeysan leega xigin Boorama leega xigin marka waxaan leeyahay dadka siyaasiyiinta doonaya inay been iyo qabyaalad wax ku helaan way naga daayay qabyaalad iyo beento nin walba wixiisa ku helo wuxuu cadaalad ku heli kara dhul dan guuda oo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iibisay ayna ka iibisay cidii ugu haboonayd ee ka shaqeyn lahayd bilicda gobolka magaalada ay ka iibisay dawladuna xaq bay u leedahay cidii keenaysa horumar biliceed ama caasimadeed ee dhisaysa dhulka say bilic uga muuqato cidii ugu haboonayd bay ka iibisay sifa sharciyana way kaga iibisay war waxaan qabaa dad waxaynu nahay wada dhashay oo mid ah maxamed way iibsan karaa meesha Cabdina way iibsan karaa kii marka awood u leeyahay inuu iibsado baan qabaa inuu xaq u leeyahay inuu iibsado kalna waa jira oo banaanaya daan iibsanahay dhisno xaanan u tartan magaaladaas biicdeeda si kor ugu qaadi lahayn ayeenan u tartamin sidoo hebel wax ku helay iyo sidoo hebel ya halka ayeenan dhaafan leeyahay qurunkan iyo qoyaankan iyo dadkan 7 sano reyaal ka soo wareegay meesha xalna TV-ga laga caayay waa fool xumade anu Saliici caay maayo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici waa madaxweynahayga xumaan iyo wanaag waxa uu leeyahayba taariikhda qoraysa laakiin ana aflagaadiga ma gayo Hussein Aateye Jaamaat Television caalamiga Universal magaalada Boorama